mudanayaal iyo marwooyin muddadii koobnayd ee dawladdu ay jirtay waxaa noo qabsoomay joogteynta mushaharka iyo gunnooyinka hay-adaha kala duwan ee dawladda sida baarlamaanka xukuumadda hay-adaha amniga iyo shaqaalaha hay ka guulgaaridda xakamaynta hubka sharci darrada lagu wato magaalada muqdisho howlgelinta ciidamo gaar ah aan u asteennay inay soo celiyaan nabadgelyada magaalada caasimadda ee muqdisho qaadidda jidgooyada sharci darrada ah oo lagu waxyeelayo shacabka Soomaaliyeed ka soo hoynta guulaha shirarkii caalamiga ahaa sida kii London guulahaas oo ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka oo lagu sareeyo mashaariic ay maalgeliyaan deeq-bixiyaasha xoojinta wada shaqaynta dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada dib u hanashada saxiixa deeqaha kuwa bixiya oo ku bixiya magaca Soomaaliyeed awooddaas oo muddo dheer gacanteena ka maqnay oo hadda aan qayb ka nahay saxiixayaasha dhamaystirka heshiiska duulimadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi dib u soo celinta duulimaadka habeenimo ee garoonka magaalada Muqdisho dhamaystirka dib u hanashada maamulka hawada Soomaaliyeed ka hor dhamaadka sanadkan aan rajayno inay gacanteena kale oo aan hor yaala hawlo aad iyo aad u baaxad weyn hawlahaasi waa kuwa naga wada dhaxeeya oo aan golaha shacabka la'aantiis horumar aan la gaari karin hawlahaasi waxaa ka mid ah dib u eegista iyo afti u qaadidda dastuurka dhamaystirka federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka hirgelinta xisbiya siyaasadeedka iyo gaaritaanka qof iyo cod 2020 dhisidda guddiyada madax bannaan ee dastuurka ee aan weli dhammaan oo dhiman go'aanka gaarista maqaamka caasimadda magaalada Muqdisho isla meel dhigidda habka loo wadaagayo khayraadka dalka iyo awood qaybsiga dib u habeynta hay-adaha garsoorka iyo ugu dambeyn ansixinta sharciyada hortabinta u leh xukuumadda anigoo tixraacaya qoraalkii iga soo gaaray muddooyinka golaha shacabka bishii saddexdii bishii May 2017 taas oo ku saabsanaa heshiiskii Berbera waxaan cadeynayaa qodobadan sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 7 farqadiisa 2 afaraad iyo shanaad waxaa waajib nagu ah ilaalinta madaxbannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaan cadeynayaa in bilowga hawshan ay ka horeysay 8 Febraayo 2017 sidaas awgeed dawladdu waxay ku howlan tahay sidii u heli lahayd xog dhameystiran oo la xiriira arrintaas markaan helno xog dhameystiran waxaan la wadaagi doonaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha ee khusayso mudanayaal iyo marwooyin dib u habeynta iyo tayeynta hay-adaha dawladda waxaa udub dhexaad u ah helitaanka hay-ado dawladeed oo ku shaqeeya nidaam iyo sharci si aan u xaqiijino ballantii aan ummadda ka qaadnay waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh inay ansixiyaan 15 hindisa sharciyeed oo ay dhawaan xukuumaddu idiin soo gudbin doonto waxaan ku kalsoonaa ama kalsooni weyn ku qabaa in haddii hay-adaha dastuuriga ah ay wada shaqeeyaan ay wada amba qaadaan danta guud ee ummadda ee noo dirsatay in hadafkeennu oo aan doonayno inuu meel marayo waxaana gaari doonaa natiijooyinka waxqabad ee shacabku uu naga filayo ugu dambeyntii waxaan halkan aan leeyahay falfadhigii labaad ee baarlamaankii 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waa noo furan yahay maanta